maanta waxay dheereereen waan faraxsanahay annaga daan rafajinahana ma faraxsanin qiimayntaas la sameeyay ayaa waxaa laga hadlayaa in maaragtay sidii la rabay aysan u dhicin marka waxaa loo kala saaray dadka ku jira qaxootiga sida aniga hadda intaan ogahay waaye ka badan waa suuragal laakiin waxaa loo kala saaraa lagu dhahay 3 group baa loo kala axmed maalmaha waxaa taagneed arrin ku saabsan dadkii qaxootiga ahaa ee ku sugnaa xeryaha Dadaab bal marka hore waxaad faahfaahin guud naga siisaa qaxootiga ku sugan xeryaha Dadaab maxay ku tiirsan yihiin waa mahadsan tahay cadow runtii xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxaa jooga qaxooti fara badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood wadanka ay ka tageen xilligii dowladii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay qaar ka midna ay dagaaladii sokeeyay ee wadanka kala dambeeyay ay ka tageen kuwa ugu dambeeyay laga yaabo arrimo duruufo dhinaca amni iyo dhinaca maaragtay kalaba ay maaragtay uga tageen Soomaaliya ayaa sugan qaxootigaasi 80% nolol ahaan waxay ku tiirsanayeen gargaarka maaragtay beesha caalamka iyo wadamada horumaray maaragtay uu bixiyo hadda dhibaatada ugu weyn laga soo sheegayo waxay tahay inay saameyn ay ku yeelatay deeqdii laga heli jiray dalka Mareykanka oo hay'aduhu ay siin jireen dadkaasi siiba USAID oo dhinaca cunnada iyo maaragtay taageerada qaxootiga 80% maaragtay halka ay ku deganaayeen haday biyo tahay haday daawo tahay haday cunto tahay haday waxbarasho tahay intaba hadda taasaad moodaa inay maaragtay meesha ka baxday wax iyaga gaar u ahna ma jirtay waa wax adduunka oo dhan ah maaragtay Mareykanku iyo waliba madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo maaragtay talaabo uu qaaday oo ku kala diray guddigii hay'adda USAID marka hay'adaha ku xigeenka ka dambeeyay waxay sameeyeen ayaa la dhahay qiimeyn iyo inay dadka dib ugu laabteen dadka wax heli kara dadka aan wax heli karin iyo dadkii maaragtay يعني حالدودو أي عادتها يدك عن حالدودو أي مالك نورمال كتاعي يكون عن تغييره وبهنين مركا قيمين تاس لسنيي أيا وحا حليا إن مارتي سي للربي أي سنودعين مركا وحا لو كلا ساري دتك كجرا قحوتيga sida aniga hadda intaan ogahay waaye ka badan waa suuragal laakiin waxa loo kala saaraa lagu dhahay 3 group baa loo kala saaray group ka koobaad waxaa laga dhigay waa la yiri koox helaysa 40% gargaar raashin ah in la siinayo kooxda labaad in 100% oo ay helayaan gargaar 20% ah kooxda saddexaadna waxaa laga dhigay inaysan waxba helaynin oo aan wax taageero ah aan la siinaynin marka dadkii waxaa la rabay hay'aduhu inay u qoraan dadka dibadaha loo jiro dadka taageerada ganacsiga haysta oo ognahay qaxootiga waxaa lagu haystaa ganacsiga lagu haystaa dad baa ganacsiga haysta dad baa dibadaha loo jiraa oo dadkii muddada dheer uu joogay xeryaha qaxootiga dadkoodii dibadda ay aadeen dad baa dibadda loo jiraa dadna waa dad hadda aan waxba heli karin ama hore ha u joogaan ama kuwa cusub hadda tagay intaba ha noqdaan marka hay'adihii waxaa la dhahay waxay u qoreen xogtii u aruuriyeen si aan sax ahayn dadku waxay ku eedeynayaan dadka hogaamiyayaasha xeryaha ay eeda saarayaan waxay leeyihiin arrintan markay cusbayd idinkaa ka seexday waxay ahayd in ay hay'adaha iyagu ay hor qabtaan maaragtay oo doorkooda ay qaataan maadaama iyagu bulshada ay kala og yihiin nin walba laga yaabo xeradiisa iyo maaragtay bololiidhada in loo diro dadka duruufaha kala duwan ay leeyihiin maaragtay lagu qiimeeyo waxna lagu siiyo laguna qoro marka sida hadda muuqata waxa weeyaan waxaa dhacay oo dadku ay ka gadodsan yihiin dad aan waxba heli karin dab aan shidan karin waxbana aan haysanin in maaragtay la yiri waxa ma helisan waxa lagu daray dadkii wax heli kara lagu daray dad aan waxba heli karin lagu daray oo baahan waxa laga dhigay dad oo dibadda loo jiro biil helay laga dhigay dad dibadda loo jiro oo hantilayaal ah oo ganacsi haystana waxa laga dhigay dad maaragtay baahan oo heli kara
arrinta ismaandhaafka dhalisay oo hadda la isku haysto oo la isku hor fadhiyo oo dadka ku nool xeryaha qaxootiga ay ka bannaan baxayaan oo ka gadoodsan yihiin runtii waxaa weeyaan waa arrintaas sida aan aniga xogta ku hayo waa qaldanaan kartaayo dee maadaama meeshii aanan joogin axmed waxaa jirto in banaanbaxyada ka socdo xeryaha dhadhaab gaar ahaan xerada dhagaxley guddoomiyada u hadlay waxa uu ku baaqay in aan la tegi karin goobaha WFP ay ka bixiso gargaarka bal haddii qaxootiga uu kala jabo qaybna ay u hoggaansamaan guddigii ayaga maamulayay hadalkoodii qaybna hay-adihii uga hoggaansamaan arrintaasi maxaa ka dhalan kara runtii arrintan hadda waxay dadka ay uga bixi karaan dadku horta nin walba dee dan buu leeyahay laakiin arrintan waxaa isleeyahay waxaa looga bixi karaa waxay tahay in la muujiyo midnimo in la muujiyo in hay-adaha haddii ay xadgudub sameeyeen waddan waxay joogaan sharci leh waddan waxaa la joogaa maaragtay Kenya waa waddan sharci leh waa waddan maxkamado leh waa waddan nidaam leh inay dadku si nidaamsan ay u dacwoodaan wixii ka qaldamayna si saxa ay dowladda Kenya ay ugu dacwoodaan guud ahaan saaxiibayaal muuqaalkii koobnaaha maanta waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay maxamuud cali xasan oo aniga axmed maxamed cabdi toronto ayaa igala qayb qaadanayay muuqaalkiisa xiga inta aynu ku kulmi doono nabadgelyo